السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورسكم حنكيك دونا بريشو بروديوسر بروجرام راي لحظة وآد وفيعن waxaad ku baran doontaa programkan qaabka aad u samayn lahayd slideshows kala duwan oo runtii aad u qurux badan. Maanta waxaan eegi doonaa casharka ugu horeeya oo ku saabsan interface-ka guud ama muuqaalka guud iyo waxyaalaha uu ka kooban yahay programkani. halkan sidaad arkaysaan waxa yaala waa menuskii kala duwanaa ee programku lahaa. halkanna iyagoo shortka dhow baa lagu soo dhigay. halkan waxaad arkaysaa folder list waa halkii aad kasoo gelinaysay dhammaan sawiraantaada kala duwan, hadaad kasoo qaadaysay documentska ama computerka, musica, videoska, pictureska, hadba meeshaad doonto waa sourceki weeye. halkan waxa weeyaan waa backgrounds baa ku jira aad isticmaali kartid intaad hagaajinaysid sawiraanta. sidoo kale halkan waxa yaala waa timelinekii ama meeshii aad soo dhigaysay sawiraanta kala duwan, oo halkan waa slide list ahaan oo sawiraantii isku xigu soo dhigaya. halkan waxa weeye waa timelinekii oo ah qaab isku xiga oo ka duwan slide listka weeye. markaad doonaysid inaad samaysid slideshow aad u qurux badan oo cusub, waxaad tegaysaa file. markaa dhowr noocba waa kuu soo saaraya options kala duwan, new show iyo new project. markaa project waa noo furan yahay, waxaan tegaynaa markaa new show. markaa new showga halkan options kala duwan baa yaala. waa blank show, adiga markaa wixii gaar ahaan sawiraantii kusoo guraya, adiga kala maamulanaya. halkan waa template hore oo loo sameeyey. halkan waa wizard, halkan waa mid hore u jiray inaad soo furatid. markaa inagu waxaynu ku eegi doonaa wizardka. wizardku waa runtii waa mid aad u qiimo badan oo wuxuu suu ka habeynaya, isagaa suu ka fadhiisanaya sawiraantii, codkii iyo titleladii aad doonaysay inaad samaysid. markaa wizardkii baan ku dhiftay, waxaan idhi create. markaa mid hore dabcan noo furnaa, don't save. wuxuu soo saaraya welcome to the ProShow wizard. marka halkan waxaa kugu soo dhaweynaa ku tilmaamaya qaabkii aad u samayn lahayd. marka waxaad tegaysaa continue to the wizard. marka wuxuu ka kooban yahay sidaad arkaysaa waa 5 qaybood. getting started oo kan ah, waxaa kugu xigaya inaad soo gelisid sawiraantaadii, videoskaagii, titleskii iyo music ama codkii. intaa waxaa kugu soo xigaya themes and effects, waxyaalaha effects ama saameynaad ku daraysay. intaa markaad soo dhaaftid energy level optionska iyo sida codka aad saartay iyo sawiraantu ay isku waafaqayaan ayuu ka hadlay karnaa. dabadeetana saas waxaa kugu diyaaraa videogaagii oo dhammaystiran. casharka ku xiga ayaynu ku eegi doonaa sida loo sii isticmaalayo, loo sii wadayo wizardka.